والسلام عليكم أصحاب تقالية وايد والسلام عليكم سادوك جوكتان وحارجين إلى عافمات قبطان أنا قبل سيدا وعافمات قبو سيدا أركيسان وحيل قلبي وحان كسوبح شقدا وحاواي إن شاء الله قربت روتين كيني إي ساعدان هيك بلاوت وحيل قلب قاب dukaanka ayaan soo aaday waxaan rabaa wax yarkii aan uga baahanahay guriga ama iiga dhamaado kaleeto in aan ka soo iibsado waa iska sida markuu dukaanku ku dhow yahay xaafadada dukaan agtaada ayaa markuu ku yaalo wax dheexaad dukaan way ciilo oo meel dheer iga jira ma fahantay laakiin hadda waxaa waa alxamdulilah guriga hoostiisa agtiisa oo dukaanku igu yaala soo sida arkaysa meesha waxaan ka fiirinaa waxyaabihii aan u baahanahay ama guriga iga dhamaadeen oo kale markaas aan xasuusto kaleeto waa aniga اسبوعي وكل وقت لكن وحواي مرك خاركود وحياة أنا قررت أسكن لي سؤال ويسن جرتا وحاسة قررت أقول عن يسوس أركز ماشي وحرادنا روتي أي رادنا روتيجي أسبوع كستو وين الله فوق ذاك السوق قسم هذيك الوقت دي سايع دعايو لكن مرك خاركود وحاسة وكل روتي هدي أبرف جلسوا كل كام دعايو لكن ما تسكيلوا مرك خاركود هذا الربع وكل سوق دين وحين قاعسة إن أسبوع كستو لدونه soo meeshan waxay ka dhamaatay burkii meeshan burka ay soo raqiisiyeen fuflur waay laakiin hadda ma sameeyo doon insha Allah laakiin iska soo iibiyay oo waxaan rabaa wiilkayga yarka inaan u sameeyo maalin oo idin la wadaagi doonaan sida u sameeyna insha Allah haddii aad rabto ama aad jeceshahay fuflurkaas waxa waa asagoo diyaarsan oo sidaas u diyaarsan caano iyo waxa la ku qasaysaa soo diyaarsan burka oo sameysan kartaa haddii kalena gurigaada ayaa ku sameysan kartaa soo cafan meesha waxaan ku haystaa kale tafis bigredi oo isticmaal doona asaga oo isticmaal doona insha Allah aniga ayaa idin wadaagi doona maalin kaleeto ma muuqaalka insha Allah soo iyo baakad saacanaha soo iibsaday wixii ayaan kala xareynaa shay walba booskiisa ayaan geyn doona insha Allah waayo wax kasta marka meesha loogu talagalay geeso way ku fududaanaysaa soo burka waxaan sameeyay caagada burka iga dhamaatay ayaan ku soo shubanaa aniga waxa waaye caagadaas ayaan isticmaalaa inta badan oo ku soo dhaweystaa raashinka عقدان وحكيل كرتان هاد 2 كيلو بر أساس أي دقيق وحكيل كرتان دكاك إيكيا أم إيكيا قف كستو سدو قرنايو إن شاء الله أيو عقد أيو يعني السايس أي كليين أيجو يرير أيجو وابين إهواية سو ماشي حساقات وكنت صبح صدو عربة كيجيرو عسيري اسكفضت إنه كسطورو ولغو شاكستو تيبي لغو فرصة إن شاء الله maxaawaye kulo 3 iskaga tuur maqasheen meesha waxaan ku soo dhalaasanayaa 100 gram oo subag soo kun ayaa soo qaatay waxaan isticmaali doonaa 4 xabo kun insha Allah iyo 2 deciliter oo sokor ayaan isticmaali doonaa insha Allah soo hooyo hadaa tahay caruur iyo guriga ku joogan ama xaajiga oo guriga jooga wax ku wanaagsan ويجي هالمر إنه قصة ترتو حيرة معاني إن ما فرحت جدسو قسمة إن مال والبصمة يسدوا الصومالي وكلت أي سمين كرتا وحقوق ما كرتا مرتي وكلكو ما كرتا سي أمل ودقتو وكلت وسمين كرتا إن شاء الله سدوا الشيء إن الصومالي وكلت مكاها الله سميل أيكو تالي كرتا أسبوع دان أيكو ين كرتا آتي أيو في عدا أيضا دور مرة وسوق لي جنالك سيد لو سمي آتي أيو فضل دور الصومالي جيني عادي إهد soo daawada channelka da ku cusubtahay gudaha u gal channelka soo booq waxyaabo badan ka helaysa insha Allah oo dhiirgelin adan ku noqonayso aniga dhiirgelin ay tahay muuqaalka marka ay daawataan ay share gareeyaan insha Allah waan idinkaga mahadcelinayaa gabdhaha quruxda badan soo sida arkaysa meesha waxaan ku soo daray 2 deciliter oo sokor iyo 4 xabo kun soo intaas ayaan isku soo garaaca si fiican ilaa ya lafaha iyo dhuuxeeda in iska galaama faanteen soo wallahi intii oo noo si qasmayso doorsan ay idin sheekay gabdho waxaa ما هو إذا كمشغولي عفوا كرال نقطة هرقب كأدونك عفوا كرال نقطة وحواي قفاع حل وجرها هرقب عرورتي يقرأ عي وانا شقيناي وحي اسكو نقطتي وحالها ياي أركبا يعني انت سأسكوك هشي الميو هرقب إيقالي يعني وشقو أرداي نقطتي سو إن شاء الله وحارجينا إنا السيدة هوريتو كسو نقضو جانالك دي هاليدن كأركاي إن شاء الله هذا كان سيدي رجالسان هاللي كأركو سو مش أيان سو عبرتي وحن سو عبرتي بركي أيان هالكاس كسو عبرتي وحن كلو كسو دونا بوك بلفور أمسي كلا فيحسو لبا قاندو قاندو شيء يقولوا ولاقة أيو دينتا كاس أيو دينتا إن شاء الله مشان حي وجرو كلا فنيلي سكر أما عرفتو سدا وتقانو هدي أذن هيسن عرفتو وحكوشو يعني وحا استعمال كرتها هي الآت دقيق أما صف عن أسو شيدو كلتو
soo aan markasta waxaan sameeyaa carfisada iyo bakinka iyo burka si fiican ayaan isku dhexgeliyaa. Halkan waxaan soo qaatay kukus ama qumba la qalajiyo oo diyaarsan oo 2 deciliter ayaan kusoo shubtay. soo qumbaha aad iyo aad ayuu caraf uga dhigaa dulshada kaaliska arag lagama sheekeyn karo. Subagii aan soo dhalaaliyay xoogaa wuu yaro kulul yahay, marka waxaan sameyn doonaa insha Allah caano ayaan cabiranaa 2 deciliter oo caano ah. soo kaaliska arag aad ayuu u fudud yahay oo dulshada saxanka ah inaba caadi maaha. soo qumbihii iyo intii aan dulshadii aan si fiican usoo garaacay ku is dhexgeliyay, kadib waxaan ku daray subagii iyo caanihii aan soo shiiday. soo hadda quro yaa maqashaan habeen helay cod ka saaran muuqaalka karaal noqdo insha Allah. waxaa waa ilmaha hergaba haysan ka dhinac xirmo cabran yihiin. soo waxaan sameynaa burkii ayaan hadda kusoo gidiyay mashiin isticmaal doona insha Allah. soo caagadaas oo afkeeda caaga yahay ayaan isticmaalay oo qaandada ah. soo si fiican ay isku soo dhexgelinaa, marka soo dhexgeliyo saxankaas ayaan ku shubi doonaa. soo saxanka ayaan waxaan sameynaa waraaqadaas ayaan u isticmaal doonaa insha Allah. waraaqadan ma aha waraaqadaha labay kala tahay, midna iyadoo diyaarsan oo jajaran ayaa soo gadanaysaa, midna adeeg ka rabta inaad jajarato. soo marka aan waxa igu soo aaday markaan mid inaan jajarto laga rabo. soo geesaha ay ka dheerta maqas ayaa soo qaatay waa ka jajaro xoogaha. soo saxankeena saas ayaa kusoo diyaarsan. saxanka uma baahnayn haddii aadan haysan warqadna waxaa sameyn kartaa subag ayaa marinaysaa ama saliid midkii aad haysato, kadibna waxaa ku shubaysaa wax yar oo bur beebinaati ah ayaa dusha kaga dadaadinaysaa, ama rootiga qalajisan oo kaleeto isticmaali kartaa asagana sidoo kaleeto. soo dulshadeena halkaas ayaan kusoo shubanay, ofinka ayaa u diri doonaa ama foornada ayaan gelin doonaa insha Allah. kaaliska arag waxaa u geeyay 250 ayaa u geeyay kuleel ahaan. soo dulsheero iska fudud oo kaaliska arag oo casriye oo inaba caadi ahayn kaaga soo baxayso, waayo waqti badan kaama qaadanayso insha Allah. uga soo tuuro caruurta laga farxiyo, waxaa waaye wayna wanaagsan tahay marka meel la fadhiyo oo kaleeto wax yar afka la iska gashtiyaa iska wanaagsan tahay. TV-ga lagu wada fiirsado, waqti lagu wada qaato caruurta kulli familka iska dheh maasha Allah tabarakallah. soo dulshadeena saxanka waa kusoo fidfidiyay, foornadu way noo soo kululaato marka hadda dalaq kaaliska arag markay kusoo baxdo aan idin wadaagi doonaa insha Allah. soo halkaas ayaan iska soo nadiifinaa kaaliska arag meelihii burka iiga daateen wixii oo dhan ayaan iska soo tirtiraa. waxaa waaye nadaafatul iimaan, waxaa waaye nadaafada aad iyo aad ay wanaagsan tahay. mideeda kaleetana aad iyo aad u fududahay markii aad rabto inaad sii fadhiisto ama aad daalanto kaleeto hawsha la iskuma sii badiyo. laba eber shay kasta marka hore ka isticmaasho hadda hore ka sii sameyso ku fududaanaysa hawsha. soo halkaas waxaan soo saartay digsi ayaan soo qaatay, bariis ayaan si fiican usoo dhaqay, bariiska biyo ayaan kusoo shubay. bariiskan sidoo kale asaga janalku ku jira dhowr mar sida uu sameeyo bariis furfur oo kaaliska arag. saliid yar ayaa ku daraysaa bariiska, biyo cad bisa ku karinaysaa iyo wax yar oo cusbe ah. kaaliska arag kusoo baxaa. dulshadeena waa kana way nooga soo baxday maasha Allah tabarakallah, lagama sheekeyn karo inaba caadi maaha. saasay u jilcan tahay kaaliska arag. waan jarjari doonaa, waxaa waa casriyeena diyaarsan doonaa insha Allah. dulshadan si fudud ayaa lagu sameeyay, waxaa waaye iyo waqti badanna kaama qaadanaysa. kaaliska arag oo qumba ayay ka samaysan tahay inaba caadi maaha. soo karligi ayaa halkaas soo saarto. waxaan rabaa shaah kaaliska arag oo dheega jabiye ah inaan soo sameeyo. soo waxaan soo qaatay qaandadeena caadiga ahayd cuntada lagu cuno ayaan kusoo shubtay oo labadeeda ah. sokor badan ma la isticmaali doono insha Allah. shaygaas dhana argaysa 2 qaando oo sokor lagu karnaa sababtoo dulsha lagu cunaa, haddii kalena waa ka dhaafi kartaa. qarfiheel aan si fiican usoo shiiday adduunyo ku daray, kadibna waxaan ku daray caleenteeni. kaaliska arag shaygiin sasa noogu soo karkaray lagama sheekeyn karo carafta iyo udgoonka. indiina idin macalina waa aragteen si qudaar la iga dhig ama xawaashida ugu jiraan. saxankeena halkan waxaan kusoo diyaarsaday dulsha ayaan kusoo diyaarsaday. halkaas kale waxaan soo saartay buskud laga sameeyay mishaari iyo laga sameeyay maasha Allah tabarakallah. wax badan oo sokor ma lahan, haddii aad reero kafeena insha Allah way ku anfacaya. buskudka sidaan camal sawir ayaan idinkaga soo qaadan doonaa insha Allah marka dambe muuqaalka xigo. waan biska ilooba mar dambe ayaan arkay. soo shaygiini ayaan soo shubanay kaaliska arag. haddana waa tan haddii dulshada ayaan tusaa lagama sheekeyn karo inaba caadi maaha. qumbahana wuxuu siinaa dhadhan ay inaba caadi ahayn iyo caraf kaaliska arag lagama sheekeyn karo. shaygiini waa kaas maasha Allah tabarakallah.
bariiskeeni waa ikanaa heeyaa waa ikanaa u taagan yahay bariiska haduu inoo soo yaro kulaaday wax yaroo saliid ayaan kusoo daray iyo wax yaroo cusbe biyahaas bisa ku kari doonaa insha Allah. kaaliska arag ayuu kusoo baxaa bariis furfuro oo kaaliska arag soo casriyeed markii la soo casriyay kabacdi waxaan rabaa inaan sameeyo casho yar oo fudud oo kaaliska arag ama markaa tahay hooyo shaqeynayso aabi shaqeynay labada qofood ordayaan waxa u baahan tihiin cunto markasta idin diyaarsan ama si kale waqti badan ay idinka qaadanayno kaleeto oo kaaliska arag oo fudud oo maasha Allah tabarakallah kadib waxaan soo qaatay digsigeeni ayaan soo qaadanay waxaan kusoo shubtay basal ayaan soo jarjartay hilibna waa soo diyaarsaday hilib shishiid maasha Allah tabarakallah hilibkeeni shishiidka markii oo barafka nooga soo dhacay banaankii wax badan soo yaalay ayaa hadda basash iyo hilib shishiidka si fiican isku soo shiili doonaa insha Allah. waxaan ku darsanayaa kaleeto xawaashka barbarooniga shiidan xawaash dhudhoob wax allaala waxa haysato madiida insha Allah. basbaas hadda haysto ku darsan kartaa hadda aan waxaan ku darsadoo kaleeto basbaaska shiidan ee filfisha isku qalajiyay waaye intaa kaaliska arag lagama sheekeyn karo soo intaas ayaan si fiican iskugu dhex shiilaa oo iskugu soo shiilay hilibka si fiican dhafaa iyo dhuuxa aan kasoo gelinaa kaaliska arag lagama sheekeyn karo maasha Allah tabarakallah. hilibkeeni markii oo dhacaan ka baxay oo si fiican soo shiilmay yaa dee lagama sheekeyn karo bariiska sacad iyo maraqa sada isku karsato laba maalin cuntadooda isku karsato wareer laba maalin jika ma istaagaysid insha Allah haddii uu yahay familkaaga familiar oo kaleeto wixii kale yaryar ee caruurta u baahan yihiin of course waa loo galaa jikada ilmaha yarka iyaga mala waxay u baahan yihiin waxyaabo kale u baahan yihiin laakiin qofka shaqadu urdayo kaleeto ama yani lama awoodo in maanta dhan jika la taagnaado insha Allah. waxaan rajeynayaa in hooyooyinka shaqeeyaan aabayaasha sidoo kale shaqeeyaan haddii aad ku wareersan tahay waxaa sameyn kartaa cuntada hal mar isku kari laba maalin cuntadooda diyaarso wiilalka buuxso insha Allah. kadib waxaan kusoo daray qaando yaanyo shishiid yaanyo caadi ayaan kusoo daray intooda markay isku soo karsamaan isku soo shiilanto ayaa waxaan soo dhaqay digirta gasacmanka ama digirta baakadaha ku jirto waaye oo laba xabe si fiican ayaan usoo dhaqay waxaan kasoo bixiyay biyihii horeetay iyo dheecaanka ay ku jirto dhan waan kasoo bixiyay si fiican ayaan soo nadiifiyay maasha Allah tabarakallah. haddii ay kugu tahay markii ugu horeysay arkayso digir iyo hilib shishiid la isku daraayo abbaay macaanta waxaan kaa baryaa in aad soo baroweyso soo dhadhamiso kaaliska arag lagama sheekeyn karo waa borotiin socdo maasha Allah tabarakallah. soo baroweeya caruurta bara insha Allah. soo digirteedi markii ay diyaar noo noqotay dibka u gaabsano xoos uga dhigo diyaar markii ay noo soo noqotay waxaan sameeyay waxaan hadda dush kaga dar waxay tahay basal baar la qalajiyay ayaan dush kaga darsaday kaaliska arag lagama sheekeyn karo maraqaan iyo bismillah maasha Allah. marka hadda codka saaraa mar hore calooshida ku tagto mar hore yaa soo wiilasha ayaan soo qaatay caagadihii cuntada aan ku diyaari lahay waxaan bilaabay inaan guro qiyaas ahaan inta qof kasta ku filan ayaan ku guraa caagadaas insha Allah. caagadahan sidoo kale waxay ka heli kartaan dukaamanka IKEA waa ka heli kartaan iyagoo dhalooyin waxaa kaloo ka heli kartaan dukaanka Glass Olson lahay ama Glass Olson maasha Allah tabarakallah. caagadahan wuxuu kaa caawinaa inuu cuntada ku diyaarsato oo fridge ku diyaarsatay insha Allah laba maalin saddex maalin wuxuu ku xiran tahay familkaaga intuu leega iyo qiyaastiisa maasha Allah tabarakallah. haddii shaqo loo orday haddaana shaqo loo ordeynin xitaa way ku caawinaysaa markaa haysato ilmo yar oo kaa dawoonaya maanta dhan waxay kaa caawinaysaa cuntadaadoo diyaar cunto allaala cuntada haysato kale waa ku guran kartaa waa ku diyaarsan kartaa qof waliba hal caag oo lasoo baxaa wuxuu kaa caawinaa waqti badan oo kusii garooweysaa oo lacag fiican way kusoo yani waa safgaraysanaysaa waxyaabo badan ay kaa saacidaysaa cuntada in aan laba maalin saddex maalin haddii aad awoodin inaad isku diyaarsato oo isku karsanto maasha Allah tabarakallah. wallaahi waxyaabo badan oo faa'iido badan ayay leedahay insha Allah. baroowe isku tijaabiya ama yani tijaabiya waxyaabo badan aad ka dareemi doontaan waa nafisiisa maanta dhan jikada la taagnaanaya ma jirayso maasha Allah tabarakallah. inta yaree 30 daqiiqo ama 40 daqiiqo ay ka qaadanaysaa marka wax badan karinayso laakiin hal maalin ama laba maalin ka nasanaysaa. iftar cashada waxay noqotay waqtigii caruurta ama yani xilliga caruurta la kala seexin lahay maasha Allah tabarakallah. meeshaan waxaan soo galnay musqushii qabeys ayaan u diyaar gareynayaa oo qabeynayaa kaaliska arag waxaa waaye ilmaha markii loo qabeeyo waxay ka helaan nafaas aad adiga sugeyn waxaa dareemayso ayuu cunuga yar dareemaya maasha Allah tabarakallah. soo caruurta markii loo qabeeyo
kareen loo mariyo waxay dareemayaan hurdo raaxa leh oo neeca oo maasha allah tabaarakallah ah. soo qabayskeeni markii aan soo qabaysanay waxaa waaye meeshaan shukubaanka lagu tirtiranayaa dagaal iyo hargaf aa lagu jiraa faadeen hal gacan waxaa ku duuba hal gacanna waxaa waa asaga ugu tirtirayay maasha allah tabaarakallah. ilmaha ilaahay noo deysto awlaada ilaahay noo barkeeyo. soo meeshaan dharkii uu ku seexan lahay ayaan halkan kusoo diyaariyey. wuxuu taagan yahay iidaay kareemka anaa marsanayba xariif yaa maasha allah tabaarakallah isoo dhaha insha allah. inta awlaad haysan ilaaha sii inta awlaad haysatana ilaaha u barakeeyo awlaad baariyaal oo saalixiin oo dayib ilaaha nooga dhigo. dhammaantiin waa idin wada jeclahay muuqaalkeena wuxuu maraa gagabo kheyr iyo caafimaad iyo bashbash iyo barwaaqa ayaan idin rajeynaa. muuqaalkan wuu u dheeraaday muuqaalkan xaqiisa sii hadduu idin soo gaaro sheergareynta iyo laagta iyo wax kasta commentiga xaggiina waaye insha allah. adika ayaan idinku dhaafay intaas seeto.